waxbarashada heerka sare inta badan waxaa lagu gaaraa nafurnimo, dadaal iyo ka go'naansho. kuwa kasoo qalinjabiyana waxaa loo arkaa haliyeeyo naftooda iyo dadkooda usoo hooya guul muuqata. balse hadda arday walba oo kasoo qalinjabiya heerka jaamacadda laguma tilmaami karo haliyey mutacalim ah. taas waa markaynu fahmayno in jaamacad walba aysan qayb ka ahayn xaqiijinta yoolkaas. jaamacaduhu alaaba waxaa loo fishaa meelaha ugu waaweyn ee lagu rumeeyo riyooyinka nolosha iyo xaqiijinta himilooyinka. adduun lacageed ayaa uga baxa ardayda aqoon-doonayaasha ah, iyaga oo bixinaya waqti iyo tamar nafurnimo leh si ay u dhigaan diiwaan iyo taariikh cusub. balse in kale ayaa sidooda oo kale heli kara fursadaas, iyaga oo u maraya hab iyo dariiq kale oo ka fudud kana gaaban. uma baahna inay xaadiraan fasalada, joogteeyaan cashirada ama ay u fadhiistaan imtixaanaadka. waxa keliya oo ay u baahan yihiin waa bixinta lacag adag si ay u iibsadaan shahaadooyinka ugu sarreeya heerka tacliinta sare. jaamacadaha bixiya waxbarashada online-ka ah waxay hadda u muuqdaan kuwo magacuyaal ah oo aan lahayn mabaadi' dhaqan jaamacadeed, waana mid dunida oo dhammi ay ka muujinayaan walaac xoogan. barnaamij dokumentari ah oo ay aljaziira ka diyaarisay qaadashada shahaadooyinka been abuurka ah ayaa daah rogay xaqiiq qaraar badan oo dunida oo dhammi la fajacday, halkaas oo jaamacado sheeganaya inay bixiyaan koorsooyin online ah ay suuqa madow ku iibiyaan shahaadooyin ay ku qoran yihiin ku dhowaad kuliyad kasta iyo laamaheeda oo qofkii soo dalbada loogu dhigayo magaciisa. shirkadda Exad oo ah mid ka mid a shirkadaha ugu waaweyn dhinaca IT-ga dalka Pakistan, sidoo kalena sheegata inay tahay tan dunida oo dhan ugu weyn, ayaa la ogaaday inay hostin ama hoy u tahay kalabar jaamacadaha sheegta inay bixiyaan koorsooyin online ah dunida oo dhan. layaabka jira ayaa ah in jaamacadahani aysan lahayn xarumo ay ku bixiyaan waxbarashada ama xitaa macallimiin u diiwaan gashan. si howlgalkoodu ugu muuqdo dhab iyo runlamood, waxay ardayda iska diiwaan gelisa qaarkood u diraan cashiro ku saabsan qaybta ay ka doorteen kuliyadda jaamacadda. mararka qaar wax ku jaban ma lahan inaad la samayso wadaxaajood toos ah adiga oo weydiisanaya inaad u baahan tahay shahaado jaamacadeed, xitaa haddii aqoontaadu aysan gaarsiisnayn heer jaamacadeed. mana ahan oo keliya digriiga hore iyo kan labaad ee shahaadada jaamacadda, xitaa markhaatiga ugu sarreeya ee PhD ayay ku siin karaan. waxaa keliya oo kaa hor istaagi kara hanashada shahaado jaamacadeed marka la joogo dunida jaamacadaha online-ka ah waa lacag oo keliya. dad badan oo cilmi doonayaal ah waxay si fudud ugu dhaceen dabinkii ay dhigteen jaamacadahaas, balse qaar kale ayaa ogaal uga doontay shahaadooyin been abuur ah si ay u helaan shaqooyinkii ay rabeen. mana ahan xirfadlayaasha caadiga ah ee bulshada ka tirsan. kuwa jagooyin muuqda ka haya dowladaha ayaa soo gelaya liiska, kuwaas oo qaarkood wasiiro iyo xildhibaano ay soo doortaan dadkooda ka ah wadamada ay u dhasheen. dowladda Mareykanka waxay tilmaantay in jaamacadaha sheegtay inay bixiyaan waxbarasho iyo shahaadooyin online ah inay dhaceen adduun dhan $140 milyan oo dollar. qaar badan waxay ka dhigeen xubeer faramaran, in kalena waxay soo hor istaajiyeen fadeexo iyo ceeb. balse walaaca ugu daran wuxuu yahay sida laga yeeli doono dadka shahaadooyinka ka qaatay jaamacadahaas, kuwaas oo kaalmo muhiim ah kaga jira howlaha qaran iyo kuwa heer bulsho ee wadamadooda, lagana yaabo in si buuxda loogu aaminay mas-uuliyad aysan aqoon buuxda u lahayn gudashadeeda. waxaana ku jiri kara dhaqaatiir sameeya qaliimada kala duwan iyo injineero dhismaha guryaha iyo wadooyinka loo xil saaray. si kastaba tani waxay bermadow ku noqonaysaa halganka iyo dadaalada ay bixiyaan jaamacado badan, kuwaas oo jiilka ay soo saarayaan marinaya tijaabo adag kahor inta aysan guddoonsiin markhaatiga jaamacadda.